waddanka Mareykanka iyo Canada oo ballan qaaday inay kiisaskii faraha badan oo dadka bandhigka sugayo inay boobsiin doonaan. dad waxaa jira oo qorsheeyeen bisha 12aad in loo shaqeeyo. dadka bisha 12 loo qorsheeyay waxay dhaheen waan soo horumareynaa bisha 10aad dhamaadkeeda ilaa ay bisha 12aad ayaa la boobsiinayaa ayaan dirdirgelinayna ay ballan qaadeen waddanka Mareykanka iyo waddanka Canada kiisaskooda ayaa la boobsiin doonaa. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا وررتي مانتا ودن بيسي حريها قحوتي رداب مانتا اوكو بيغن تاريخ طوان بيش طوانات لبودو كوين لباتان إلا بدا قضبادا مانتا وحاكمي ده راشين قادكي معلمها سعودي او اسبدل عصب كسو تردي iyo qodobka labaad waxa kamid ah maanta oo si weyn loogu xusay caalamka oo idin maalinta caafimaadka maskaxda adduunka 2022 qodobka xigo 400 oo qoys oo maanta lagu deeqay raashin fara badan iyo qodobka ugu dambeeyay wararkii ugu dambeeyay boofista xiriyaha qaxootiga dhab ayaa si weyn uga bogan doontiin muuqaalkan kusoo dhawaada haddii fadlan aad ku cusub tahay channelkeena waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto like noo saarto noona share garay muuqaalka si dad badan u gaaro aan ku bilaabo qodobka koowaad oo ah isbedelka cusub oo ku soo rodhay raashin qaadkii maalmaha socday raashinkii oo loo qondeeyay inuu socdo 9 maalmood ayaa maanta laga dhigay 8 maalmood labadii maalmood ugu dambeysay oo loo qorsheeyay in dadkii baahanayaalka cusubnaayeen oo maalmihii u dambeysay 3 bilood ama 2 bilood u dambeysay oo la siiyay kaarkii oo boonadii ayaa raashinkoodii oo bishan la siin dooni oo ilaa iyo amar dambe isbedelkaas cusub ayaa ku soo rodhay dadkii baahanayaalka u dambeeyay ma qaadan doonaan labada maalmood loo qorsheeyay ayaa hadda ku yimaaday Brito oo ah taariikh 12 oo talaado ah waxaa qaadan doono 9 dadkii raashinka aragti hore 9 iyo 12 dadkii hore oo cusubnaay boonada cusub haystaan ama taarka cusubnaay haystaan aytan waxaa qaadan doona baahanayaalka 9 iyo 12 ayaa qaadan doonaan marka qodobkaas ayaa jirta mid kale Brito marka 9 hadii aad tahay maalin kale fursad ayaa loo siinayaa sidoo kale maalinta arbacada waa xaal sidoo kale qaadan doona 9 iyo 12 ayaa qaadan doona maalinta arbacada ugu dambeysay ayaa la qaadan doona sidoo kale habsan Brito hataa waxaa qaadan doona dadkii maalmahan u dambeysay soo habsaamay way qaadan doonaan marka 8 maalmood ayaa saas laga dhigay Brito oo talaado ah taariikh 12 iyo taariikh 12 oo arbacaha ayay ku egtahay raashinka idil marka hadii aad tahay 9 iyo ama 12 oo labadan ama taariikh cusub hayso ama taariikh hore hayso waxa fursad u leedahay inaad arbacadana qaadato waxba biri mashquul iyo jaam isgelinin hadii fursad u helwayso Brito waxaad qaadan doontaa ugu dambeys arbacada ayaa qaadan kartaa waana ugu dambeys maalinta u dambeys waa arbacada waa habsan isbedelka cusubna waxay ahayd qodobka marka la soo xoojiyo dadkii baahanayaalkii oo loo qorandeeyo baahanayaalka cusubnaayn u dambeeyay oo boonada cusubneed la siinay oo labada maalmood u dambeysay oo qaadan la dhahay ayaa hakad la geliyay ilaa amar damba qaadanay ayaa la sheegay qodobkaas ayay xaqiijisay WHO iyo sidoo kale hay qodobkaas ayaa xaqiijisay World Vision iyo Peace Winds ayaa qorsheeyeen inay hakad la geliyay oo dib loo dhigay labada maalmood oo dadkaas baahanayaalka cusubnaay oo raashinkaas la siinay qodobkaas ayaa wadamay qodobka xiga hadii aan dhaadhaco maanta oo si weyn loogu xusay caalamka oo idil waxayna ahayd maanta waxay ahayd maalinta caafimaadka maskaxda adduunka 2022 hay'adda caafimaadka oo ku sugan xerada dhagaxley oo si weyn ugu shaqeyso ayaa maanta banaanbax weyn sameysay banaanbaxaas oo ay shaqaalaheeda qayb ka mid ah iyo sidoo dadka bukaanaha ayaa magaalada ku wareegayeen oo sidaas shucuurta ay ula qayb qaadanayeen bulshada ayna tusayeen bulshada in maanta maalin qaas u tahay caalamka oo idin ee dadka walaalada xanuunsan qaybta dhimirka ah in lala daqado in loo shaqeeyo in goobaha caafimaadka oo 24 saac furan in lala wadaado in laga soo wadaado qofka xanuunsan oo dhimirka laga hayo in goobaha caafimaadka MSF la keeno oo la daryeelo oo qofkaas aalam midabta tuurin lambar ayaa jira oo laga wacay MSF hadii aad u baahan tahay muuqaalkan ayaan ku soo sheegayn doonaa qaybta qof walba oo qaybta dhimirka laga hayo adeega caafimaadka waa loo shaqeynaa sida u dhaqsiyaha badan lambarka laga xiriiro insha Allah sidoo kale qodobka xiga hadii aan u dhaadhaco 400 oo qoys oo lagu deeqay raashin cadadeeda fara badan yahay ayaa oo dadkii baahanayaalka cusubnaayeen xiriyaha qaxootiga baryahan kusoo qulqulay gaar ahaan xirada dhagaxley ayaa raashin fara badan ayaa lagu deeqay raashinka soo qayb weyn ka qaatay Germanka magaalada xirada dhagaxley Abdullahi Geeto
oo baaq u diray hay'ado fara badan oo caalami ah hay'adahaas oo hay'ad ka mid ah oo ka howlgasha magaalada Nairobi ayaa baaqaas ka soo jawaabtay oo raashin fara badan ugu deeqday qaxootiyada cusub ayaad insha Allah muuqaalkan si fiican ugu bogan doontiin muuqaalkana dhameystiro bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdullaahi Cali Aadan gudoomiyaha guud xerada Dhagaxley maanta waxaan joognaa Dhagaxley aad baan u faraxsanahay waxaan halkan raashin ka bixinaya hay'adda Ahyaa Turath ka socota dawladda Kuwait waxaa maanta wax la siinayaa dad gaara ilaa 400 qoys ka badan ayaa maanta raashin helaya aad baan u faraxsanahay sababtoo ah dad fara badan oo dhibaataysna ayaa maanta dabka loo shidayaa taan waa farxad Allah subhanahu wa ta'ala ka soke hay'adda Ahyaa Turath madaxeeda guud ee Nairobi oo ka soo jawaabay warbixinta aniga aan duubay oo kala hadlay idaacadda VOA markii aan martida ku barnaamijka dhageysan martida ku ahaa waxaan rabaa marka inaan aad u booriyo hay'adda Ahyaa Turath waa mahadsantiin jazakumullahu khairan shaqo fiican baad qabateen dad fara badan oo waayeelo ah caruur ah oo maanta aan dab shidin karin baa dabka u shideen ilaahay idinkan ajir ha idinka siiyo waxaan marka aan ka codsanayaa hay'adda inay sii kordhiso taageerada ay dadka masaakiinta ah xeryaha Dhadhaab ay u muujisay intaan way yaryihiin waana wax tar weyn sababtoo ah 400 qoys maanta dabka loo soo mahad ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soka hay'adda ay sameysay laakiin wali waxaan codsanaynaa in la soo kordhiyo saamka loo qayliyo la dadaalo si dadkan mataqaan masaakiinta dabka aan shidan karin ay u caawiyaan kuwa ilaahay wax siiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala umadu waxba isugu dhiibay marka qof wax loo dhiibay haddii lagu imtixaamaya kuwa kale masaakiinta ayaa lagu fiirinaya marka waxaan ka codsanayaa hay'adda madaxeeda guud ee Nairobi iyo kuwa xeryaha Dhadhaab iyo kuwa wadamada kala joogaba inay is abaabulaan si weyn ay ugu soo muuqdeen barnaamijkan taakuleenta masaakiinta ay ugu soo muuqdeen inay laba jibaaraan anana waan garab taaganahay waan u mahadcelinaynaa meel kastoo tagno waan ka sheegaynaa insha Allah waxaa marka aad aan ugu faraxsan in saaka dadka masaakiinta ay wax qaateen farxadooda lama soo koobi karo sababtoo ah dad aad tabaaraysna oo dhibaataysna ayaa maanta wax helay marka waxaan codsanayaa islaamka kale dadka kale oo ayadaha islaamka ama dadka shakhsiyaadka ilaahay wax u dhiibay oo ilaahay wax siiyay in dadka noocan oo kale ay si hay'adan ay ku daydaan ayagana ay soo taageeraan taakuleen ay siiyaan wada arkaysa abaari weli roob madeen abaari way taagan dadkina way soo qaxayaan habeenkaas dad baa soo galaa dadkina hay'adihii qaramada madoow way ka gaabsadeen inta badan wax siin jiray dadka caawin jiray way ka gaabsadeen marka waxay ku tiirsanayeen 2016 ilaa maanta intuu dhaxayso waxa caawinaya waxay dad islaam ah oo ilaahay wax siiyay ay caawin jiray dadkan qaxootiga marka saama wax loo bixin jiray laakiin wixii la bixinayo wax aad u yar waa hadda halkaan aan maanta raashinka lagu bixinayo 400 qoys way ilaa bil ama 2 bilood kadib ah waxay dab ku shitaan baas alxamdulillah aad baan ugu faraxsan laakiin waxa jira inta in ka badan oo maanta aan haysanin dab aan shidan karin sababtoo waxa la bixiyay way yaryihiin marka hay'adda madaxeeda guud waxaan ka codsanayaa dadaalka uu sameeyay ilaahay ajir ha ka siiyo inuu laba jibaaro dadka kale aan wax wada helin si ay wax uga waxaan aad u mahadcelinayaa Sheekh Axmed Nuur Xaaji Biixi oo dadaal dheer bixiyay oo maanta 430 qoys oo masaakiin ah sabab waxa in la caawiyo maanta Dhagaxley lagu caawiyo aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahay ajir ha ka siiyo waxaa kaloo marka aan u baaqay dadweynaha maalqabeenka oo adduunka dacaladiisa ku nool inay ku daydaan wadaadkan Sheekh Axmed Nuur iyo hay'adiisa inay ku daydaan si ay u taakuleen dadka masaakiinta oo daadsan xeryaha Dhadhaab banaankeeda daadsan si ay u caawiyaan marka sheekhan waa u mahadcelinayaa tiimkiisa Dhadhaabna waa u mahadcelinayaa aad baan u mahadsantihiin الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد حسين وأهو وكيل كهواد أحياء تراث Dhadhaab حريها قحوتية وكيل وباء وحمان تقريبين أن راشين مساعدة ككوبان 430 qoys raashinkaas oo ku yimid dalabkii uu dalbay gudoomiyaha xarada qaxootiga Dhadhaab ee ka hadlay VOA-da
kadib markii wakiilka hay-adda axyaa turaad sheekh axmed nuur xaaji maxamed buuxi uu dhageystay dalabkaas iyo baahida ka jirta xeryaha iyo dhibaatada haysata dadka cusub ee qaxootiga ee dib u soo galay xeryaha qaxootiga ayuu si degdega dalab u sameeyey isaga oo la xiriiray hay-adda kuwait ee axyaa turaad iyo caalamka oo dhan waxaa si degdega uga soo jawaabtay hay-adda axyaa turaad oo sheekh axmed nuur uu wakiil uga yahay dalka Kenya raashinkii isaga ahaa oo soo gaaray xeryaha qaxootiga yaan maanta u qaybinaynaa dadkii waxaana ka faa'iideysanaya dad aad u fara badan oo aad ducafo u ah aad u tabaryar aan heli karin waxay karsadaan iyo waxay awoodaan sidii gudoomiyuhu halkan uu ka sheegay ee aad maqlayseen dadkaas oo ah dadkii UN-tu ay dib u rartay kadibna ku noolaan kari waayay Soomaaliya dhibaatada ka jirtay iyo abaaraha dhacay dartood ugu noolaan kari waayay Soomaaliya oo dib u soo laabtay oo meeshoodii soo fadhiistay iyagoo aan wax lahayn wax wasaacideeyo aan lahayn dhawaaqii marka ay madaxda hay-adda qaxootigu ay dhawaaqday oo uu ka soo jawaabay sheekha hay-adda wakiilka waa sheekh axmed nuur xaaji maxamed buuxi yaa maanta aan qaybinaynaa insha allahu tacaala dadka meeshan maanta wax lagu sii hayo oo dad aad u mudnaa in la siiyo ah aadna u baahnaa yaa waxaan u sheegaynaa sheekh axmed nuur mar kale ilaahay khayr ha siiyo sidii awalba uu ugu dhaga nuglaa dadka dhibaataysan baahidooda inuu u dhaga qaado uu ugu dhaga nuglaa yaa waxaan ka codsanaynaa inuu haddana waxa intani waxba ka gaari mayso dadku aad bay u fara badan yihiin xeryo badanna way degan yihiin inuu sidiisi la mida uu mar kale u gurmado oo uu haddana ka damqado siduu awalba uga damqan jiray yaan ka codsanaynaa maantana hawshaasaan halkan ku qabanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale qodobkii ugu dambeeyay wararkii ugu dambeeyay buufiska xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaan insha Allah si weyn ayaan insha Allah u hadli doonaa waxaana isbedelka cusub lagu soo kordhiyay in hay'adaha oo qaabilsan sida IOM iyo sidoo kale RSC in ay ballan qaadeen in bisha 12aad ee sanadka dhamaanay shaqooyinka la qaban lahaa inay soo dedejin doonaan bisha 12aad iyo bisha 10aad dabayaaqadeeda inay soo horumarin doonaan kiisaska ay ka shaqeyn lahayn si loo boobsiyo xilliga Christmas ama xilliga fasaxa gaalada ama fasaxa Eid oo gaalada inta la gaarin ayay waxay dhaheen ballan qaadeen in fasaxaas inta la gaarin ay shaqooyinka ay boobsin doonaan si xooli ah u shaqeyn doonaan kiisaska ay hayaan ee dedejin doonaan sidaas ayay ballan qaadeen ballantoodana insha Allah waan arki doonaa insha Allah iyo fadlan muuqaalka uu dhamaanaya waxaan iga codsanaynaa asxaabta qiimaha leh muuqaalkan noo sheegareeya like noo saar noo sheegareeya haddii inta soo gaartay muuqaalka sheegareey like saar subscribe saar haddii aad saarin